afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland oo warqad ka akhrinaya qoraal ayaa waxa uu ka jawaabay eedeymo shalay gudoomiye Cirro u jeediyay madaxweyne Biixi. afhayeenka ayaa sheegay in xukuumaddu ay diyaar u tahay doorasho dalka ka dhacda balse uu xisbiga wadani uu lugaha ka jiidayo. soo dhawaada marka koowaad warbaahinta madaxa bannaan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waadi ka mahad celinayna inaad soo ajiibtaan inaad naga gudbisaan oo fariintan aan halkan ka jeedin doono. waxaan bahdiina saxaafadda aan maanta ugu yeeray inaan la wadaago nuxurka hadal yar oo kooban oo ku saabsan arrimaha uu daaran yahay shirkan jaraa'id. waxa 22kii bishii 10aad 2019 ee maalintii shalay toole warbaahinta hadalka jeediyay gudoomiyaha xisbiga wadani. hadalkaasi wuxuu u dhignaa hadal uu gudoomiyuhu hore u jeediyay oo uu mar labaad ku celiyay. nuxurka hadalkaasina wuxuu daaranaa ama uu salka ku hayay kamaagis uu gudoomiyuhu ka maagayo in dalkan ay doorasho ka qabsoonto iyo inay doorashooyinku socdaan. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa makhraatina madal baa la dhigtaa masaajidna dhagax baa la dhigaa. marka koowaad sharciga iyo arrimaha doorashadu aad ugu dheeraaday doodiisa doorashaduna waxay ahayd mid jaban sababtu ay tahay xeerka doorashada xeer number 20 qodobkiisa 13aad wuxuu si cad u qeexayaa shuruudaha iyo wadada loo marayo xulista xubnaha komishanka. gudoomiyuhu wuu yaqaanaa wuu garanayaa laakiinse wuu u bareeray inuu iska indhatiro taa beddelkeedana xeerkuna wuu ka marakacayaa. shacabka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland si cad ayay u yaqaaneen xeerka doorashooyinka waxa uu dhigayo. lambar 2 gudoomiye Cabdiraxmaan wuxuu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu dib ugu celiyay golaha guurtida xubin kamida xubnihii ay soo gudbiyeen. xaasha haddii ay jirto taasi gudoomiye Cabdiraxmaan qowl iyo qoraal wixii uu ku hayo inuu cadeeyo bedka soo dhiga laga doonaya. hadduu taa awoodi waayo oo banaanka keeni waayana de shacabka Soomaaliland siday u rumaysanayaan mararkiisa dambe iyaga u taala oo sheegi doona. u malayn maayo sadeyn dib loo rumaysanayo. qowl iyo qoraal ayaana lagu muujiyaa de wixii la hayo ee cadaanay qof mas'uul oranayo. waxa jirta beri kamida beriyaha ayaa 2 nin oo fardafuulka yaqaanay oo midkood aad u yaqaanay ay faan fara badan iyo Britain ay ku galeen in fardafuulnimada lagu kala dheereeyo oo lagu kala guuleysto. waxay muddo hawshoodu socotaba maalintii dambe madalla waa loo qabtay maragna waa la isugu yimi meel waa loo asteeyay iyadoo loo dhayahay ummadii ay joogto ayaa 2 faras oo shixnadan oo isku hooyaa oo la soo xakameeyay golihii iyo madashii la keenay. labadii ninba way koreen markii ay diyaar garoobeen ee siiriga loogu dhiftay ayuu xawligii iyo butaacadii iyo sulaacadii midi u booday markiiba wuu tegey oo wuu libdhay. kii kalena faraskii wuu xaraamiyay xakamiina wuu ku qabtay. faras xakamaa lagu qabtay oo lala dhacayo jeedalkii oo la xaraamiyayna de wax xaqiiqi inaanu dhaqaaqayn xawliina aanu gelaynin. waa lagu kala boqolay. maalintii labaad baa madashii la isugu yimi ninkii faraska xaraamiyay ee xakamaha ku hayay ee inuu farasku xawli galo u diiday ayaa golihii ka yimi wuxuu yiri hebel wuu khiyaameeyay muu badin. dad baa goobta joogay odayadii kamida oo xeer beegtiya oo aad u garanayay xirfadda fardafuulka iyo siduu xakamaha faraska ugu hayay iyo siduu u xaraamiyay ayaa madashii ka kacay. wuxuu yiri war ma adaan ninka la khiyaameeyay haa buu yiri maxaa dhacay buu yiri wuxuu yiri faraskii kala khiyaameeyay wuxuu ku yiri faraska waadigii xakamaana ku qabtay xaraamiyay magaca wuxuu ku yiri Cabdi Geedi baa la yiraahdaa. war Cabdi Geedi ma tiide Cabdi Xaraamiya tahay buu yiri. ninkaaga faraskii xawlina u diiday xaraamiyay ee xakamaha ku qabtay Cabdi Xaraamiya tahay. runtii dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal dimuqraadiya ku soo caanamaalay hanaanka geedi socodka doorashooyinka. xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ka go'an oo ay geed dheer iyo geed gaabanba ugu taagan tahay in doorashada xilligeedii lagu galo, in doorashadu ay inoo dhacdo ay qabsoonto, in doorashadu aanay inaga baaqanin oo aanay dib inooga dhicin.
shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u yihiin inay doorashooyinka galaan oo ay sidii uu farayay waajibku ay doorashooyinkooda u galaan arintaas bedelkeedana dawladdu waxay dadaal cad ugu jirtaa diyaarinta doorashooyinka waxay dadaal cad ugu jirtaa diyaarinta horumarka ninka horumarka diidan iyo ninka doorashada diidan iyo ninka dana kale leh intaba shacabkuna way arkaan xukuumadduna uma joojinayso hore ayaa loo wadayaa geedigii iyo hufnaantii iyo sidii qarankan loogu soo hagar baxay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sharafta badan waxaan u sheegaynaa oo aan cod dheer ugu sheegayaa inay dawladda ku garab galaan dadaalada horumarineed iyo dadaalada doorasho iyo dalkani sidii uu halka uu maanta marayo ee xukuumaddani soo gaarsiisay ee xukuumadii hore keeneen inuu hore uga sii baxo cid kasta oo ku hawlan waxa aan intaa ka baxsanna dalkuna uma joogsanayo dadkuna ma yeelayaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdiraxiim muuli ismaaciil shabakadda wararka Ilays News magaalada Hargeysa